cabdullaahi bnu rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyaysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya anuu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi humma intaa ka dibna nunaji aladiina ataqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonnaa wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innanka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheraddeenii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiinna markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan allaahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan bisigaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn zuraarata ibna abi awfa raximahullah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suurata almudathir markuu gaadha faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara cala alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyaha suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albacthi weeyaan aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay dabeedna meydkiisina gurigaa loo qaaday sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu tala galay waxay tihi nin quraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu tala galay anigaa carabiya ma cid kalaa haa jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kalaa haa ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxamede ma cid kalaa haa waa cumar binu khadaab bay ku tidhi cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo derajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abiibakri sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abuubakri sidiiqunbaa ka fadli badnaa kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaabba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay waatuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin qulubtooda ayaa noolaato jilacday innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun butuun maxaan cunaa maxaan fuulaa maxaan qaataa halkeen galaa maxaan dhalaa halkeen tagaa xaggee wax ka cunaa waxa adiga laguma diran adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay maya kama warqabee ii sheega buu yidhi waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday
roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anu warkaa ma haya buu yidhi anu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb alcaalamiin razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba yeelo laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika xadiis alquds ilaahay baa leh adigana faraa'id baan ku saaray anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi cabdi laka calaya risqak waliya calayka fariida anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii anaa arsaaqadaada ballan qaaday adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horrayso